saaxiibkay Sufyaan Sheekh Axmed ku soo dhaw xiisaa wararka maanta waxaan rabnaa bal inaan eegno arrimo ka duwan kuwii aan horey ugu wareysanay waxaan bal eegi doonaa arrinta dimuqraadiyadda iyo Soomaaliya iyo waxa ay tahay dimuqraadiyad dadka Soomaaliyeed ma loo baahan yahay inay arrinkaasi ay qaataan ama ay ku dhaqmaan ama marka la gaaro doorashooyin iyo oo la soo hadal qaado in dadka Soomaaliyeed isku doortaan arrimahaas ayaan rabnaa bal inaan eegno aan soo dhaweeyo gudoomiyaha Tarakunool Sufyaan Sheekh Axmed oo markale marti inoo ah شو ما سنتهي فرصة أنا وصلت سعيسى وركا إلى مركلة نجا أقبشوا عزومادة مركلة برسولو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وري عبد القادر بعض ما سنتهي وكله حساب وركا thank you very much. واي هوا ما هي ديمقراطية. الديمقراطية وري عبد القادر ودين. waxaan jeclahay markaan ereygaas iraahdo shacabka Soomaaliyeed dimuqraadi waa diin dad badan waxa laga yaabaa inay gadaal u boodaan oo yiraahdaan sug dimuqraadi sidee diin ku tahay waxaan marka hore inaan sharxo waa maxay diin ereyga diin luqadda carabiga marka laga hadlayo luqadda Englishka iyo luqadda Isbaanishka oo luqadaha aniga takhasuskayga ah waxa lagu fasiraa inuu yahay ama ay tahay dhaqan nidaam sharciyo bulsho ay qaadatay oo ay ku dhaqanto oo ay sharci ka dhigatay oo ay ixtiraamaan oo iyagu ah waxay aaminsan yihiin sida daraadeed dimuqraadiyadu waa diin la sharciyadeeda nidaamkeeda dastuurkeeda ama qaacidadeeda iyo dhamaanba wax alla wixii diin laga rabay waana diin ka soo horjeeda diinta islaamka oo sharciyada dimuqraadiyadu waxay ka soo horjeedaan sideeda guudba diin kasta oo jirta khaasatan anaga diinteen islaamka aad ay uga soo horjeedaa waxa la yiraahdo diinta dimuqraadiyada dastuurka Soomaaliya qoran ee dastuurka gaalada ana waxa uu ka soo horjeedaa diinta islaamka waxaana ku qoran bilowgii shuruucdii diinta dimuqraadiyada oo badanaa marka wadan la geenayo si tartiib loo galiyo waayahay dastuurka ayaa soo hadal qaaday ee Soomaaliya diintu ma ku soo horjeedaa absolutely dastuurka Soomaaliya waxa ku yaala qodobada qaar kood oo hadda rabo inaan sheego waxa ku yaala kow in shakhsiga Soomaaliga uu ku qangaaray 18 sano 18 sano inaad ku qangaarto waxay ka soo horjeedaa diinta islaamka waxa dhici doonta maalmaha kamida dastuurkan hadii aan ku soo socono ama aan ku sii socono waxa dhici doonta in gabadha 17 sano jirta hadii la guursado ay noqoto dambi oo xabsi lagu geeyo waayo waa qof aan wali qangaarin sharciga dastuurka ee gaalada ama diinta dimuqraasiga la yiraahdana arintaas waa ka soo horjeedaa waxa dhici doonta hadii gabar la sunno gudeeyo inay noqon doonto in qofka lagu ciqaabo sharciga ah inuu ciqaab geystay waxa la yiraahdo torture ayuu yaqaanaa waxa dhici doonta in aadan awood u lahayn ama ay kula tartanto diinta kale dimuqraasiga ama diinta gaaladu inay kula tartanto dastuurkeena marka wuxuu ka soo horjeedaa kitaabka jaamaca qofka dastuurka hadda noo yaala aaminana waa qof diinta islaamka banaanka waa dadka Soomaaliyeed oo muslimiin dastuurkana in badan ayaa laga hadlay waxa ayna sheegeen dadkii Soomaaliyeed markay hadlayaan waliba dadka dastuurka wax ka soo diyaariyay ama rabay inay dhaqan galiyaan waxyaabaha ugu hor imaanaya diinta waa laga tagayaa meesha ku muuqan waxyaabaha uu diintu ugu horeeyay waa laga tagayaa maba soo gasho meesha anagu dad Soomaaliya nahay dad Islaam aan nahay boqolkiiba boqol Islaam dastuur aan leenahay dastuur kale to inaan ka doodno ama aan meesha soo galino ama aan ka hadalno meesha maba ku jirtaba waa dimuqraasigi waa diintii kale to oo la rabo si tartiib ah in wadanka lagu soo galiyo ilaa ay gaarto maalinta dambe in nin isguursadaan naag isguursadaan oo runtii maanta wax Soomaalida oo cad oo hore la isugu dayay baarlamaanka Soomaaliya inta la keeno in la damco sharcigaas in la hirgaliyo laakiin wuu socod waay laakiin dimuqraasiga sideedaba waa diin laba diinoodna isma qaataan ama waxaan nahay dad dimuqraasiya ama waxaan nahay dad islaama labadooda laakiin isma galaan islamana socon karaan waayahay dad Soomaaliyeed laakiin waa dad muslimiin ah dimuqraadiyadan inta badan waxa la sheegaa marka ay doorashooyinka iyo arrimaha dawladda ka yimaadaan in wax lagu maamulo oo laakiin diin ahaan aan loogu dhaqmin maxaa adiga ku muuqda si gaar ah oo aad u leedahay dad Soomaaliyeed waa diin ay ku dhaqmayaan well democracy waxa la yiraahdo waa nidaam loo dejiyay in lagu maamulo dawlad ama dad lagu maamulo diinta islaamkuna waa nidaam Ilaahay u soo dejiyay in lagu maamulo dawlad iyo dad lagu maamulo ama shacab lagu maamulo labadoodu marka mid qaado midna ka tag isma galaan democracy-gu waxay aaminsan tahay waxa la yiraahdo secularism macnaheedu waxa weeyaan in wax diin la yiraahdo noocay rabtaba ha ahaatee in banaanka laga dhigo dadka laga xayiro saad ogtahay waa aragta wadamada France Belgium Netherlands waxay isku dayaan sharci dejin inay soo rogaan oo ay ka takhalusaan diinta islaamka iyo diimaha kaleba inaadan qaadan karin mactabkii banaanka aadan ku xiro karin meelaha qaar kood inaadan xijaabkii qaadan karinin inaadan waxyaabo sunnada oo islaamka macnaha muujinaya inay mamnuuc ka tahay annagana sidaas aan ugu bilaabato maanta
waxay taagan tahay in dastuurka Soomaaliya loo yaalahay uu qorayo shuruuc ama qodobo ka soo horjeeda diinta islaamka marka dooda meesha ku jirtahay ma aha democracy-ga dadka Soomaaliyeed ma qaadan karaan iyo ma qaadan karaan dooda meesha ku jirtaa waxay tahay waa diin kaleeto anaguna diinan haysanaa laba diinoodna isma galaan waayahay laakiin culimo ayaa joogtay Soomaaliyeed oo dalkan soo joogtay ilaa iyo waligeed Soomaaliyeed culimo oo ahaa dadka muslimiin bay ahaayeen maxaa isleedahay waa ugu aamusayn oo arrintan macnaha culays kaliya ku muuqday safaan ahaan oo ayaga u muuqan waay waxaan isleeyahay runtii laba arrimood mid koowaad waxa weeyaan dawladda dadka Soomaalida khaasatan culimadeena islaamka inta democracy-ga taqaana micnaheeda really what democracy is aad u yarta shaki kama qabaan marka waxay u arkaan democracy-gu inay tahay in la isku doorto waa sida shacabka Soomaaliyeed badan u aaminsan yihiin mana ahan democracy-gu waxay tagtaa ilaa iyo inuu guursado naagay guursato waxay tagtaa in sharciga islaamka completely laga soo horjeesto oo qofkii ku dhaqaaqa ama diinta islaamka ku amal fashaay laakiin taas ku muuqata oo hadda qaybtada ah xusay oo macnaha dadka Soomaaliyeed inay u dhaganuglaanayaan heerkaas inay gaarsiiso oo ah in uu guursado kale well democracy-ga saasa democracy-ga haday saas tahay macnaha hadii democracy-gi dadkii waday ama dadkii faafinayay ama dadkii ducaada u ahaa democracy-ga oo tabliiqa ahaa oo noo keenay democracy-ga ama wadaahay waxay ugu fasiraan dadkii inay tahay doorasho kaliya ninkii caalimka ahaa oo sheekh ahaana ama diinta islaamka yaqaanana ma yaqaanaba democracy waxay tahay in yar baa taqaana marka sidaa daraadeed culimadii kama aysan hadlin waxa kale oo culimada haysata dib kale oo ah ayagii in aysan fahamsanayn wadankii in laga qaadanayo energy-goodii iyo awoodii culimadu ay lahaayeenna iyaga isku jeediyay firqadii kale ku jeeda marka labadaas arrimood daraadood ayaa keenta culimadu inaysan arrintan ka hadlin rag ka hadla waa jiraan khayr Allah siiyo laakiin hadii uu maantay wadankii uu jiro nin sheekh ah oo leh diinta islaamka looma soo dejin in lagu maamulo dad looma soo dejin haduu leh oo democracy-gi aaminsan qofka islaamka waxa fahmi kartaa wadankeena cilada haysata iyo dhibaatada haysata waan runtii wax laga naxo qofka noocaasina waa qof diinta islaamka aan ku jirin qofka aaminsan democracy-gu waa gaal qofka diinta islaamka aaminsan waa islaam waayahay dadka Soomaaliyeed sida aan ognahay waxay aaminsan yihiin diinta islaamka laakiin dimuqraadiyadan iyo arrimaha doorashooyinkaba xoggiisa ahaado marka qaab cankee ah ayaa xilliga bulshada Soomaaliyeed loogu baraarujin karaa in macnaha ay diinta qaataan runtii waa fududahay marka warsi waxaan rabaa horta inaan sheego doorashada waxa la yiraahdo diinta islaamka ka tim in la is doorto amrun bishura baarlamaan iyo meel la samaysto waa diinta islaamka qabta fikirkaas fikir democracy ma democracy-gu way khiyaantaa waxay sameeyaan ayadoo ujeedada ay saas marayaan ay waxay sameeyaan doorasho ma democracy hadda qofka rabtid dooro kartid isku day inaad dooratid ninka adiga rabtid waa in qof lagu soo dooray oo adiga lagu keenay oo lagu soo hordhigo dadka democracy-ga aaminsan ku soo hordhigo bisa dooro kartaa qofkaasina waa qof aaminsan diinta democracy-ga aaminsan way therefore democracy-gu ma laha doorashada xorta ahi waxa laga helaa diinta islaamka nidaamka u dejisay sida daraadeed ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu qaldan yahay in ay ku fakaraan oo ay u qaataan democracy-gu inay tahay doorasho iyo in qofku qof uu dooro karo arrintaas waa arrin qalad runtii completely doorashada saxda ahi diinta islaamka ka timaada diinta islaamka shaqo kule waxaan rabaa marka inaan xuso arrintan دين كستاهي وحي لها دعاء ذي لها تبليغ لها تبليغ دتك دين الديمقراطية فافياهي وانت بدن دتك وطلبة باسبور ودن كان صوماليا كتجي markii hore u dhashay halkan ka tagay wadan kale doortay inay wadan kale qaataan nidaamkiisa sharcigiisa iyo diintiisa waxaanan u malaynayaa waxa wajada qurba joog yaanan dhihin wadadka labada baasaboor wata wadan ku soo laabtay laftiga qurba ka timid Sufyaan absolutely laakiin uu laba baasaboorna ma lihi democracy ma aaminsani waaya labada baasaboor qofka wataahi qofka baasaboor hadii lagu aamino wadan kaleeto miinas ayagu ka tirsan yahay ninka marka labada baasaboor wataahi hadda aad ma kale anu kii kale bari ma qaadaba baasaboorka waligay uma dhaaran waligay wadan kale labada baasaboor qofka wataahi waa qof u dhaartay aaminsan diinta democracy-ga u shaqeeya canshuur siiya ka dambeeya ilmihiisii ay u joogaan ganacsigiisa ku leh wadan kaleeto oo danta Soomaaliya ka soo horjeedo oo Soomaali ahayn qofkaasi marka aan dhameeyo qofkaasi marka looma aamini karo laguma aamini karo sirta qaranka ma noqon karo qof wadankii daacad oo dhisi kara wuxuu daacad u yahay wadan kaleeto qofkaasi ma aha inta qofkaas oo kaleeto uu xil dawladda ka hayo ama sirta dawladda og yahay wadanka Soomaaliya ma ka baxayo in la ekaatay dhibaatada ku jirto waaya dad laba baasaboor wato oo dalkooda u shaqeynaa oo soo laabto oo wanaag iyo diin iyo wada messenger none absolutely none caalamka kaleeto sida caalamka wadankan hadda aan joogno Kenya hadaad wadatid baasaboor wadan kaleeto ama baasaboor wadan kaleeto aad in la ekaatay hatta uu meel ka soo galo hatta
jagada ugu yar ee dawladda ma qaban kartid caalamka dhan waa sidaas qofka laba baasaboor wataahi dawladda sirteeda ma ogaan karo uma shaqayn karo loomana ogola waayo qofkaasi waxa uu daacad u yahay wadan kaleeto waxaana uu ku qasban yahay dadka hadda labada baasaboor watay Soomaalida ee wadankeena hadda jooga ee maanta shaqaynaya waa dad la qasbi karo lagu xukumi karo awood loo leeyahay wadankaas ay ka yimaadaan baasaboorkooda wataan in uu xaniyaha qabto ama soo rabo uu qasbo oo ay bixiyaan sirta wadanka in fact ayadoon saas lagu sameeyay ayuu adeegan maanta waxaana ku tusinaya wari Cabdulqaadir markii la keenay sharciga jinsiyadda lagu bedelay diinta islaamka ee lagu soo horjeeday ee hal mar laba mar baarlamaanka dhexdiisa laga dhawaaqay waxay ku tusinaysaa dadka arintaas sameeyay waa dad labada baasaboor wata waa dad aan dhaqanka Soomaalida lahayn qof dumar oo waligeed aan guursan ama hadii la guursaday 3 bilood la guursaday dad aan guurka iyo dhaqanka Soomaalida iyo aan ka dhacsanayn diinta ka dhacsanayn dad haday rabaan aan salaada dukanin ayaa wata arintaas marka waxay ku tusinaysaa dhibaatada wadankeena maanta haysata waa dadka labada baasaboor leh oo noola yimid ama wata diin kaleeto oo aan diinteena ahayn oo ah diinta dimuqraasiyada oo maanta ay u cadaa qof kasta Soomaaliya inay tahay diin ka soo horjeeda diinta islaamka way dalkeena waa burburay dagaal ayaa ka dhacay waa la kala qaxay oo qof walba naftiisa ay kala soo cararay hadda waa la isku soo laabtay qofka wadamadii ay tageen oo maangali siiyeen waxay xaq u leeyihiin iyagoo aan hadafkooda idintooda fulin ayaa la baasaboorka la siin karaa marka hadda ma waxaad leedahay dadkii dhan ee Soomaaliya ee soo laabtay qurbaha oo qaarkood madaxda dawladda ay ku jiraan dawladda hadda waqtigeeda u dhamaaday kulligood waa dad u shaqeynaya danaga islaameed oo dalka Soomaaliya rabaan inay ka taan wari Cabdulqaadir waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed hal xabeen la wadaago qofku marka uu wadan shisheeyo u tago khaasatan wadamada westernka ee diinta dimuqraasiga aaminsan waxa la mariyaa wuxuu maraa tilaabooyin kala duwan oo lagu hubinayo qofkaasi inuu ayaga ka mid yahay waxa lagu sameeyaa waxa la yiraahdo deculturization dhaqankii in laga bedelo waxa lagu sameeyaa waxa la yiraahdo assimilation inuu dadkii la mid noqdo qofka baasaboorka la siinayo wadanka la Norway ama America ama Canada waa qof la hubiyay waliba dadka markii ay arkaan inay wali aysan dhaqankii la qabsanin dib ay u daahiyaan waqti la siyaalo waa loo badiyaa waqti si uu la qabsado dadka marka maanta baasaboorada kala wata ee soo laabtay wadanka ka shaqeynaya ee sirtii wadanka gacanta ku hayahay waa dad daacad u ah wadan kaleeto daacadna aan u helin wadankeena waa dad diyaar u ah inay iibiyaan wadanka waa dad diyaar u ah in markii dhibaato ay dhacdo iskaga bax wadanka ku laabta koodii kaleeto waa qof laba wadan leh waxay la mid tahay arintaasi dadka wadanka maanta ka shaqeynaya ee sirta dawladda ee labada baasaboor leh waxay la mid yihiin nin eedadiis ama adeerkiis la jooga oo hooyadiis iyo abiis meel u joogan saas la mid yihiin diin kaleeto iyo diin kaleeto laba diinood isbar bartaala anu midaan haysanaa dib ma aha in qofku uu fahmo in diinta islaamka la qaato diinta dimuqraasiyada laga tago mid kale dadka labada baasaboor wada wato dhani ma wada wasaq dadkii fiicnaa ee labada baasaboor watay ee wadankoodii dhibaato qabsatay ka qaxay soo noqday way ka xishoodeen dawladda inay galaan because waxay og yihiin wax lagu sameey karo waxay og yihiin dhibaatada loo geysan karo waxay og yihiin in la qasbayo in ay sirta dawladda u siiyaan wadanka ka yimaadeen therefore waa ka xishoodeen ma ay raadin xil dadkaasi waa ahlu sharaf laakiin dadka ku dhiiraday ayagoo labada baasaboor wata oo wadan kale la soo baray dhaqankiis oo diin kale soo qaatay oo diinta dimuqraasiga faafinaya oo raba inay bedelaan inay noo keenaan nin inuu guurso naagna guursato dadkaasi waa dadka u baahan maanta in laga qabto xilka wadanka iyo dawladda shaqadeedana waa in loo dhiibo ay hayaan qof wadanka Soomaaliya baasaboor kale aan lahayn wadanka Soomaaliya u dhashay ku koray waxna ku bartay waaya ilaa hadda ma jirto meel cadeyn lagu hayo dad u taagan in diin la yiraahdo dimuqraadiyad ay ka faafiyaan gudaha dalka Soomaaliya laakiin aragtida kooxda tala ku nool Cabdulqaadir Raaliya haddii aysan u cadeyn shacabka Soomaaliyeed adigaba in baarlamaanka inta la soo hor istaago la keeno sharci oranaya nin waa guursan kara zinaduna waa xalaal haddaasan u arkin inay diin tahay ka soo horjeed diinta islaamka laakiin waxaan ku guuleysanay waxaan isla fahanay diini waa dhaqan waa waxaad ku dhaqantood aaminsan tahay oo rabto oo adiga ka dhaadhacsan haddii ay ka dhaadhacsan tahay inay sax tahay nin guursado naagini na guursato zinadu in xalaal tahay qofku inuu 18 sano ku qaan gaaro haddii ka dhaadhacsantood fikirkaas aaminsantood baarlamaankii loo hortaagan tahay shacabka Soomaaliyeed oo islaam oo rabin aad rabto sanka inaad ka gelisid waa wax cad oo dib loogu soo gaman qofkaas inuu diinta dimuqraasiga u aaminsan yahay laakiin shacabka Soomaaliyeed diintooda ku dhaqmaan markay xaas guursanayaan waa la isku mehriyaa nin kama guursado Soomaaliya gudaheeda marka waxyaabaha soo idil wax hadda macnaha muuqdo oo anaka shacabka u saaran banaanka oo hadda taagan xaalad taagan oo kulay muuqato oo ku ka aragtida waa gaar ma jirto laakiin arrinta dimuqraadiyadda
maxaa culimada iyo macna lagu wada istaagay maadaama dadkan uu yahay dad boqolkiiba boqol muslim ah maxaa hortaagan wariye Cabdulqaadir aad u mahadsantahay fikirka noocaas oo aad sheegtay oo ah annagu waa ku dhaqanaa diinta ku dhaqanaa waxaad la mid tahay shakhsi guri soo dumaya raba inuu hoosta ka nadiifiyo hadiiba baarlamaanka iyo meesha wadanka laga maamulayo la raba diin kale in lagu faafiyo oo lagu qasbayo hadii uu ku taliyo nin sirta wadanka bixinaya oo wadanka la geenaya hadii uu ku taliyo shakhsi adiga aaminsan inaad doqon tahay oo diintan waxaan ay yihiin backward wax laga soo tago qarniyo laga soo tago lagu dhaqmi karin hadii nin intuu fadhiistay nin loo sheeganayo inuu aqoon-yahan uu yahay uu yiri diinta islaamka ma lagu dhaqmaa anigu I say no haduu yiri wax kaleeto oo isweydiinayno waxaan u maleynayaa inay qalad tahay waa cadda inay diin islaam hadda ma laakiin qof inuu soo fariisiyo diinta islaamka lagu dhaqmi karo hadday la taagan yihiin diinta islaamka lagu baran karo oo xil dhow baarlamaanka ila dhex joogan haddaysan la dhex joogin maxaa looga waayay dadku waa dad islaamee inaysan diinta islaamka rabnaa anagu diinta islaamka lagu dhaqmo inay soo oo kitaabka ay qaataan in lagu dhaqmo kulay xilligii hore oo lixdameeyadii kulay mar la sheegay in baarlamaanka Soomaaliya ee waagaas la soo hordhigay inkastoo nasiib darro ay dhacday oo aysan u codeeynin laakiin baarlamaanka hadda jira wali uma maleynayo baarlamaanka hadda jira dastuur qoran oo la yiraahdo qabyo qoraal waaya dastuurkii hore groupkii qoraya qoran Talyaaniga iyo gaaladiya soo qoran dadka baarlamaanka joogo maanta awood leh oo macnaha wadankiila anaga awood leh u shaqeynay oo labada baasaboor wata oo markii hore baan xaq u lahayn haday ruu sheegayaan hay yiraahdaan diinta islaamka rabnaa markaasaan aaminayna qofka diinta islaamka raba sida sharciga qaanuunka caalamiga ahina wuxuu sheegayaa midalan macnaha waxa cajiiba in xildhibaankii Soomaaliya nin xildhibaana ama dawladda Soomaaliya u shaqeeya intuu baxo wadan kale in lagu xiro oo loo xiro canshuurtii bixi waa imagine that because wadan kale baasaboor ka wata so qofkii wuxuu sharciga waxa qabanaya laba wadan meesha la rabay qofka Soomaaliga ee baasaboorka Soomaaliga wata ee diblomaasiga ee wadanka u shaqeeya in sharciga wadanka iyo relationshipka caalamiga xiriirka caalamiga guud inuu ilaaliyo meesha la rabay ninka Soomaaliga ee Sweden baasaboorkiisa wata ama European passport wata ama Canadian ama American wata sharcigaas ma ilaalinayo because markuu tago maadaama baasaboor wadankaas ku hore laga xiraa dib ka galo diplomacy marka ma jirto waa wadan loo taliyo waa macnaha ninki ku aha baarlamaanka wasiirkaagii xildhibaankaagii maalintii raba la iska xiranayo waa sharaf darro waxaana laga qasbi karaa oo lagu qasbi karaa sirta wadanka oo dhan banaanka inuu dhigo maadaama wadankaas uu dhaartay inuu difaaco dastuurkiisa hadda Sufyaan iyo Tarakoon waxay u taagan yihiin Soomaaliya in diinta islaamka la dabaqo oo la dhaqan geliyo oo sharciga lagu dhaqmo oo wadanka u korgalo absolutely anagu waxaan aaminsanahay in dastuurka islaamka uu yahay kitaabka jaamaca diinta democracy-guna inay tahay diin ka duwan oo ka soo horjeeday diinta islaamka in laba diinoodna aysan isgeli karin ilaaha yiri kitaabkiisa ku yiri suuratu samad lakum diinukum waliya diini waman yabtaghi ghayra al-islam diina inna diina inda allahi al-islam aayaadkii quraanka way laba diinood isma gasho diinta anagu waxaan haysanaa islaamka ayadan qaadanayna ayadan ku dhaqmayna ayadaana ka fiican waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed in la wadaago caalamkii kale to westernka ayaa maanta xadaya diinta islaamka raba shuruucda intay qaataan inay ku darsadaan dastuurkoodii ayagoo wada kale oo soo maraya oo la civilization iyo horumaran ku gaar annagii wadankii ama diinta islaamka iska lahayna waxaan rabnaa diin kale oo democracy la yiraahdo oo nin daaciyo laba baasaboor la wato oo tabliiq oo laba baasaboor watahay uu wato oo laga soo dhaariciyay inaan maanta qaadano waa arrin qalad marka sida lagu fiirinayo Sufyaan oo lagu jeedo waxa la isleeyahay nin iska caadiya halka fadhiya laakiin nin culimo ah oo diinta dabaqaya ayaa fadhiya malahay maxaa muujin weysay astaantii qofka muslimka ah oo waliba culimada lagu garanay wariye Cabdulqaadir aad u mahadsantahay xaqiiqdu waxay tahay anigu nin sheekha oo caalima bay waxaana nin mutacallima oo islaama oo diinta islaamka yaqaana especially nin barta diimaha kaleeto iyo waxay yihiin nin barta diinta democracy-ga ay u shaqeyso qaabka wadan loo geliyo sida dadka looga dhaadhiciyo shiiciyada sida looga horkeeno socialism sida looga horkeeno communism sida looga horkeeno islaamka sida looga horkeeno intaba waa soo bartay waxaan ka digayaa marka in ay timaado maalin maalmaha kamida in qof Soomaaliya oo islaama intuu sameeyo ficil ilaahay uu amray isaga lagu xiro laakiin qofka fariinta wada waxa laga rabaa inta badan muuqaalkiisa in laga akhristo wali laga ma akhrisanayo anigu waxaan u malaynayaa diinta islaamka inta awoodeedu ay tahay waa ku dhaqma marka dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin baraarujin iyo in la baro in ay ayadoo xoog jirin aan la dilin oo aan la qasbin marka wali ma isku daydeen in aad furtaan iskuulo ama goobo waxbarasho ama dugsiyo quraan ah ama madrasooyin kale ha ahaadaan oo lagu barayo macnaha islaamka iyo diinta si ay macnaha looga horkeeno dimuqraadiyadan oo dadka looga dhaqa ama laga baraarujiyo wariye Cabdulqaadir waxaan ugu filan annaga in aan shacabka Soomaaliyeed la wadaagno dhambaalka aan wadno oo ah in waxyaabaha
dhibaatada u keenaya waddankeena si aan ugu guulaysano waddan Soomaaliyeed oo stable oo degan oo fiican si aan ugu guulaysano inaan tilaabooyinka qaarkood qaadno tilaabada ugu horeysa waxay tahay in dastuurka gaalada aan banaanka iska dhigno dastuurka islaamka qaadano dastuurka islaamka markaan qaadano waxyaabo fara badan oo dhibaato oo maanta la wareersan yahay oo xal loo laayahay sida haybta koorka sida qabyaaladda sida in la kala qaybiyo sida in nin laba baasaboor wato oo daaci u diin kale to dimuqraasiya la yiraahdo uu meesha taagan yahay sharaf uu leeyahay waxaas oo dhan meesha ka baxaya waxa kale oo imaanaya in dib loogu laabto taariikhdeeni dib loo qoro taariikhdeeni la soo qof boqortooyooyinkii ku dhaqmi jiray diinta islaamka inaan calanka iyo astaanta qaranka oo ah waxyaabo gaala ay keensatay in meesha laga bixiyo waxaas oo dhan imaanaya dambaalku waa xoog badan yahay shacabka Soomaaliyeed maanta waan dhageysanayaa waxaan jecelnahay shacabka Soomaaliyeed in ay u arkaan waxa democracy-ga u yaqaanaan inay tahay diin ka soo horjeeda diinta islaamka waxaan leeyahay marka inta aan lagu xirin adigoo aayad quraan fulinaya hadda iska qab waayahay laakiin kuma filnaanayso hal saacad ay 20 daqiiqo 30 daqiiqo 4 daqiiqo oo ama warbaahin aad kala hadashaan ama social media aad kala hadashaan laakiin in goobo kale oo aad u diyaarisaan dadka aad wax ku bartaan oo qaybaha kala duwan ee bulshada odayaasha dhalinyarada qaybaha kala duwan sida dumarka iyo ragga aad la gulantaan oo aad wacyigelin maxay idin diidan well absolutely waa wadnaa inaan wacyigelino social media ka wadnaa goobahan ka wadnaa workshops meel la isugu yimaadaan ka wadnaa arintaas kulligeed waa wadnaa wadan gudihiisa ka wadnaa wadanka banaankiisa ka wadnaa dhinac walbaan ka wadnaa waxaan rabnaa inaan ku guuleysano hadii la yiraahdo anagoo qori qaadan anagoo qof caayin anagoo qof aan xumaynin in shacabka Soomaaliyeed aan ka qaadno heeriyada gumaysiga ee saaran iyo daboolka indhaha laga saaray oo loo qurxiyo waxa la yiraahdo democracy waxyaabo cajiibka ah inaan saaxiibna heerta ku nool Muqdisho uu sheegay wuxuu Muqdisho waxa ka jirto yiri maamaha caan ah oo nimankaas qurba joogta nimanka labada baasaboor wata iyo gaaladu ay keensadeen oo Soomaaliya waxay yiraahdaan buu yiri caqligaaga batahay macaamiishaad xumeeya macnaheedu wuxuu yahay hadlin wixii sax ah dhiin hadda wixii sax tiraadii dadka kula dagaalamay marka macnaha waa hatta luqadii naga bedeleen marka waa wadnaa ololahaas waa olol aan ku jirno waana ku maasanta waxa caqabadooda ka hor yimid muddadii aad bilowdeen hawshaan ilaa imika caqabada kaliya oo haysata waxa weeyaan dadka Soomaaliga intooda badan inay yihiin jaahiliin inay yihiin oo aysan fahamsanin democracy-gu waxay tahay in dadka Soomaaliyana dhibaatada kala haysta waxa weeyaan kulligeen waxa noogu jira oo kiyaala qabiil noogu jira qof walba hayba wuxuu ugu jeedaa qabiilkiisa oo kiyaalihiisa oo ah waxa la wixii qofka qabiilkiisa ka socda uu yiraahdo waa sax qofkii kale oo qabiilkiisa ka duwan wuxuu yiraahdana ama ha fiicnaado ama xumaado waa qalad qofka qabiilkiisa hadduu gaal yahay waa la saxan yahay haddii uu islaam yahay qofka qabiilka wadanka ka yimid qabiil kalena waa la qaldan yahay dhibaatadaas ugu weyn oo haysata maantay oo runtii caqabad nagu noqotay oo ah qabiilkii oo dadkii aaminsan yihiin oo xataa diintiisa ay aaminsanaan ka weyn ay u aaminsan yihiin sameesha anagu taagan maxaa aad ugu bilaabaysaa marka wacyigelinadiina maadaama bulshada Soomaaliyeed aad dareemaysaan in wax kaliya ama furaha loo kaliya lagu rogo u yahay qabiilka in aad nafsiiska wacyigelisaan si ay u fududaato in wax walba bulshada loo sheego waa wadnaa culimadii yaa wada annaga wadno dadkii yaa wado waxaan ku jirnaa inaan dadkii ka dhamaystirno laakiin ogow dadku way isku soo dileen way ku dagaalameen qabiil ilaa haddana waa ku dagaalamayaan maalin kaliyana lagama bixi karo wacyigelintan haddaan reetol ku noolnahay waxaan ugu talagalnay inay socoto sanado waanu ku guuleysanaynaa haddii la yiraahdo shacabka Soomaaliyeed dad badan ayaan dhageysanaya waxaan dhihi lahaa marka oon rabaa dhambaal halkaas inaan ku diro qabiilku ha noo dambeeyo laakiin marka ugu horeysa wixii banaanka Soomaaliga aan iska difaacno diinta kaleeto qabiilka asagoo noo yaala diinta kaleeto oo democracy-ga aan banaanka iska dhigno iska difaacno qabiilka markaas aan la dhil garaynaa haddii la yiraahdo dhambaalkaas rabaa inaan sheego dhambaalkan wuxuu la xiriiraa arrimaha diinta wax culimo ah oo aad la kaashateen oo aad la kulanteen oo aad iska aragteen iyo qaabka aad u wajihi kartaan bulshada in dimuqraadiyadan laga hortago oo maadaama dad muslimiin ay yihiin in si diinta ugu dhaqmaan yaad kala kaashateen wala anaga haddaan reetol ku noolnahay waxaan la sheekaysanaa shacabka Soomaaliyeed dad badan oo culimo ayaa soo dhaweeyay fikirka aan qabno ayaan la wadaagnaa baaritaanka anaga aan sameeyno oo naga codsaday inaan la wadaagno baaritaanka aan sameeyno iyo research-ka aan sameeyno oo Muqdisho jooga oo Soomaaliya jooga oo Boosaaso jooga Hargeysa jooga wacyigelintan waa ku jirnaa dadna ayagoon anaga nala soo xiriirin ayay kuwaana qaateen oo fikirkeenii qaateen oo ay wadaan iskood khayr Allah siiye marka shacabka Soomaaliyeed fikirkii waa qaatay waana la wadaa wacyigelintan waa socotaa democracy waa diin kaleeto diinta islaamka waa ka soo horjeedaa laba diinoodna islaama galaan meel ilaaha diiday ama democracy qaado ama islaam qaado labada mid qaado dadka Soomaaliyeed wada muslimiina kulay intaan ka ognahay inkastoo marka dawladnimada la yiraahdo dimuqraadiya wax la sheego laakiin sida aan ogsoonahay diinta ay ku dhaqmaan waxaan ka hadlayaa shacabka maxaad u dhicweysaa in aad dad culimo isa soo fadhiisataan ama qaybo kale oo kamid ah bulshada aqoon-yahano ah si loo ay u xoojiyaan wacyigelintan
وري عبد القادر هذا ما سنتهاي وحيابها aan sameeyna anaga reer tala kunol daanahay ama qaacidada cusub ee la nimid waxay tahay in aan anagu fikirka banaanka keeno fikirka dadku ay la cabsadaan ama aysan ku dhiira kalinin qaar koodna ay caloosh ka qabaan inaan banaanka keeno sida fikirka calanka oo kale calanka dad badan oo waxa gadaal nooga soo baxay oo aan gadaal ka ogaanay yiri waa ogeyn inuu qaldan yahay waxaan hadii maxaa u hadli weyseen way waa cabsanaynaa lii macnaha tala kunol waxaan maanta magac ku leenahay inaan nahay xisbiga ugu weyn ama ururka ugu weyn ee maantay arrimaha Soomaaliya u dhaqaaqa ee ugu da'da weyn ee maanta Soomaaliya ka jira 2001 la sameeyay ilaa maanta waa jira mana kooxda ugu weyn ee koor imaad calanka Soomaaliya ee diida calanka Soomaaliya kaliya maaha macnaha waxyaabo badan oo soo wadnahay koorka calanka Soomaaliya dastuurka islaamka ee la qaato waxyaabo fara badan muhiimku wuxuu yahay marka annaga waxaan nahay dad متعلمين oo u diyaarsan soo qorsheeyay fikirka soo shiila banaankana keena banaanka markaan keenana shacabka Soomaaliyeed intooda wax garadka waa la macaan markuu la macaan yahana way qaataan anagu u baahnay inaan wacyi galino ama aan u sheegno ama aan meel u qabanno dadku waxa la baray inta lacag loogu yeero in shir loogu yeero anaga lacag ma haysano therefore shir ma shiri karna cidna marka warkii aan sheegaynaa dadkiina waa qaadanay laakiin cid kale dhaqaale idin ku taageertan ma yihiin absolutely waxna taageer ma jiraan waayahay marka rajo inta laga ka qabtaan hadda arkan dimuqraadiyadda aad ka hadlaysaan in shacabka ay qaataan oo sida uu talagashay u shaqeeyo wari Abdul Qaadir waxaan u maleynaa 4 bilood 3 bilood ka hor halkan waxaad igu weydiisay exactly goobtan aan joogno sanadkii hore waxaad rajeen inta laga qabtaa calanka Soomaaliya la bedelo waxaan ku rajada waa fiican tahay maanta calanka Soomaaliya meeshuu maraayo runtii waa isla wada ogsoonaa shacabkii Soomaalida waa soo dhaweeyeen in yar maahana intii kalena waa qaadatay waxaana soo gaaray proposals iyo gurubyo kale oo samaysmay oo naga duwan oo diyaar u in la qaataan tani way ka fududahay waayo dadka Soomaalida waa islaam haday fahmaan kaliya waxay u baahan yihiin shacabka Soomaaliyeed inay fahmaan waxaan democracy-ga la yiraahdaa inay tahay diin ka madax bannaan ka soo horjeeda la qoray dad samaystay leh masaajidadeeda markaan leeyahay baarlamaanada wadamada diimaha democracy-ga ku dhaqmay kulligood laba calaamadood leeyihiin triangle kor u jeeda iyo dome saasa kulligood Canada America Belgium New Zealand Western world dan waxa loo jeedaa waa calaamada democracy-ga diintaas ay leedahay triangle kor u jeeda oo la yiraahdo Masonic sign ama siin macnaha la yiraahdo magacyo leedahay mar labaad dadka Soomaalida ay luqadaas inay ku fahmayaan iyo domkaas Soomaaliya kii horena oo saddexda wado dhinacyada saddex ay ka mari jirtay la dhihi jiray via Jita via Colombia via Philippines triangle u aha dhulka ku yaala domka marna kor u jeeda marna hoos u jeeda kaas domkiisa hore hoos u jeeda midka cusub hadda qayb waxa lagu daray hadda cusub oo triangle domkina waa ku yaala design-ka waliba hadda in la bedelo rabaa wali si la sii bedelo caalamka democracy ku dhaqma ama dawladaha democracy-ga qaatay oo dhan waa sidaas waxaan soo gaarnay qaybada dambe barnaamijka bal waxaan rabaa si dadka ay u ogaadaan wax inta ka badan barnaamijka waa barnaamij kooban oo si ay marka ay uga helaan sharaxaad fara badan goobo aad ugu talagashay ma jiraan dadka inaad ka wacyi gelisaan oo aad u sharaxdaan dimuqraadiyadda si inta ka faahfaahsan si ay dadku u ogaadaan well very simple waxa macnaha anagu hadii jeer waxaan sameeynaa message markaan rabnaa inaan gudbino waxaan sameeynaa message-kaas inay tahay very simple wax fudud oo dadka dhan wada heli karaan waxa qof kasta oo Soomaali u baahan yahay inuu weydiiyo su'aasha waa maxay democracy waa system la yiraahdo secularism macnaheeda marka Englishka la yiraahdo waxa weeyaan diimo dhan banaanka ka wax alla waxa diin ee jira noocay rabtaa Judaism Christianity Buddhism Hinduism Shintoism Islam all of it banaanka in laga dhigo like ala dhaha Francisca iyo Spanish waxa lagu dhahaa laicos ama laico Englishna waxa lagu yiraahdaa secularism meaning secular marka la yiraahdo waxa loo laabanayaa waqtigii ku horeeyay Nabi Ciise democracy-gii jirtay Athenian countries Greece dadkii markii hore bilaabay oo diintan bilaabay meeshaas loo laabanaya وهاجاك داوديال كاس وحو ahaa Sufyaan Sheekh Axmed gudoomiyaha kooxda tala ku nool oo aan maanta la kulmay isla markaana aan kala sheekaysanayay arrimaha la xiriira dimuqraadiyadda iyo Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta in laftigooda bal ay wax ka ogaadaan ama soo bandhigo in dimuqraadiyadda aysan ahayn wax ku leh asalkeedaba diinta islaamka loona baahan dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta in diintooda ay ku dhaqmaan ayada ayaa ugu wanaagsan wax walba dhanka farsamada iyo kaamirada wuxuu ahaa Baasha Cumar oo Cabdi Qaadir Cabdulla ku dhaafaya iyo guud ahaanba faadixi sawirka sida ay nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Sufyaan aad u mahadsantahay thank you very much Abdul Qaadir